dalka Mareykanka waxaa si weyn loo dhowrayaa baraf iyo qabow daran oo ka dhaca gobollada qaarkood. Bishii November bishii February ina dhaaftay ayaa noqotay bishii ugu qabowbayd taariikhda gobollada Mareykanka qaarkood. Waxaa dadka Mareykanka ku dhaqaanaya ay la yaaban yihiin in cimiladu ay sidan sii ahaato iyada oo la galay bishii March xilligii guguna uu soo dhow yahay. Magaalada Washington DC iyo gobollada ku xeeran ee Virginia iyo Maryland ayaa ka mid ah kuwa cimilada aadka u daran laga filayo. Meelaha kale sida weyn looga filayo in baraf darani ka da'o waxaa ka mid ah gobolka Tennessee oo ku yaala koonfurta Mareykanka, isla markaasna aanan looga baran cimiladan oo kale. Haddaba waxaan xaaladdu sida ay tahay ka waraystay Abuukar Sheekh Saciid Abuukar Shaash oo ka mid ah ciyaartoydii kubadda cagta ee Soomaaliya haatanna ku nool magaalada Memphis ee gobolka Tennessee. xaaladda hadda waa ice baa noo da'aya iyo roob ku dhex jiro roobkana xoog buu u socdaa ice baa ku dhex jiro weatherka waa 20 Fahrenheit hoos buu usii dhacayaa ilaa 9 buu tegayaa 9na markuu tago marka halista naqanayso maxaa yeelay weatherka marka hoos u dhaco meeshaad ka sugaysay barafkii xashka ahay maaha waxaa kuusoo di'i doona barafka ahay waa kii sida frijeerka amaba talaagada lagu arkaya dhalada hey aad meel loo dhaqaaqi karin hadda khatar ku jirto korontadii maxaa yeelay geedihiiba ice intay fuulaan ee culusaadaan bay korontadii ileen waddankan Mareykanka ma aha waddanka Europe oo kale dhulka kuma jiraanoo waa sidii Africa oo kale kor bay marayaan marka geedo badan yihiin oo hadday culeyskii ice-ka fuulo korontadii kusoo dhacay korontadii goynayaan marka waxaa laga yaabaa dad badan inay koronto la-aan ku dhacdo waan gartay bal waxaad iga warantaa saacado yar baa inaga xiga intii waagu baryayey iskuullada iyo shaqada iyo maxay madaxda gobolka ka sheegeen siduu xaalku noqonaya iskuulaadkii waaba la xiray hadda waa waalidiintii iyo wax text message baa loogu wada diray iyo newskana way ka sheegayaan iskuulaadkii way wada xireen maxaa yeelay halkan iskuulaadkii ciyaalka basas baa qaado hadee waa dhibaato jidkii oo ice leh marka waaba la wada xiray dawladdana waxaan filayaa in la xiri doono maxaa yeelay hadduu saan ku socdo wuuna ku socon doonaa siday sheegayaan weatherkana usii dhacayo qabow hoos usii naqanayo wixii dhan baraf bay wada naqanayaan marka lagama yaababo inay dawladda kaa la furo shaqooyinka dawladda iyo wixii private ka ahayba waan gartay inkastoo weli hadda xaaladdu ayna aad usii xumaanin ood ii sheegtay in la filayo in saacadaha socda heerkulku uu aad hoos ugu dhaco barafkuna uu soo bato haddana toddobaadkii hore arrintan oo kale idinku dhacday bal haddaad isku barbardhigtid labada xaaladood inkastoo ay tani bilow tahay saan sheegay tii wiiga labada usbuuc lasoo dhaafay oo dhinaca Mareykanka oo dhan eastiga ilaa southka oo dhan wuu baraf inuu ahaay barafkii baa kala fiican midka xashka ah waa la mari karaa kan barafka anaga kaa unbaa noo da'aya isbuucii hore waxaan xasuustaa inuu 2 mar suxu noogu da'ay laakiin wuu fiicnaayo iskuulaadkii way xirnaayeen 3 maalmood isku xigna way xirnaayeen iskuulaadka halkan ilaan way u baqayaan carruurtii inay subaxdii gaari lagu qaado gaari uu ku qalibno marka iskuulaadkina way xirnaayeen dawladdana dhinaca private ka waa la xiray haddana tii wiigii hore tan baaba ka daran macaawa maxaa yeelay roob xoog leh iyo weatherkii hoos u dhacayo temperaturkii hoos u dhacayo tan waa ka saxmad badan caawa oo soo socota ilaa beri khamiis oo dhan oo maanta arbaco habeen noo tahay oo khamiis soo gelaysa waan gartay waxaad ku nooshahay gobolka Tennessee sidaynu sheegnay ma aha gobol looga bartay cimiladan oo kale oo wuxuu ku yaalaa koonfurta dalka Mareykanka oo inta badan waa diirimaad marka waa goormo markii ugu dambeysay waxaan oo kale aragtaan marka laga reebo tii 2 toddobaad ka hor iyo maanta idin haysato waxaan aragnay 4 sano ka hor aad baan u xasuustaa maxaa yeelay koronto la'aan baa nagu dhacday shaqadii kulli oo 3 maalmood koronto la'aan nagu dhacday ilaahay nooma keeno tiyo kale laakiin way soo socotaa sida u egtahay waan gartay marka bal diyaar garowgiina xilligaas iyo haddaad isu barbardhigtid waa shalayto oo dhana la sheegay in hadduu saa ku socdo ay dukaan furin oon jirnaan doonin marka dadkii waxbay sii iibsanaya caano rooti wax kasto marka anagu qodheena waa sii iibsana wax kasto haddii aan guriga ku xiran in at least waxaan cunno haysano